asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii su'aalaha oo aad kala socotaan shabakadda caalamiga ah ee hoohad news. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa haddii allaha awoodda la ogolaado anigoo ah maxamed siciid cali maxamed turki. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaagoo saddexan igu bilow. walaal magacaygu aadan maxamed cali. kuna soo dhowow barnaamijka su'aalaha iyo maxaan kugu dhahay shabakadda hoohad news. andhowe waayahay walaal waxaad ka jawaabtaa su-aasha ah soomaalidu inta badan maxaan kugu dhahdaay mahmaahdooda waxay ku salaysan tahay dhaqanka iyo maxaan kugu dhahdaay wacyigelinta iyo maxaan kugu dhahdaay sidii bulshadu ay u noqon lahayd bulsho dhinac kastaba actifeka. marka su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. waxaad sheegtaa soomaalidu waxay tidhaahdaa saddex lalama collaytamo. markaa saddexda aan lala collaytamin bal su-aashaa ka jawaab. saddex lalama collaytamo iyo su-aashaa ma garanaya. waay walaal aad baad mahadsan tahay. asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmat. walaal ku soo dhowow shabakadda caalamiga ee hoohad news iyo barnaamijka su'aalaha. waa ku dhowahay aad iyo aad baan u dhowahay. waaye walaal magacaagoo saddexan igu bilow. abdilaahi qaasim baa ladhaha xasan. waaye cabdilaahiyo walaal su-aal baan ku weydiinayaa saddex su-aalood oo aad u kooban. markaa su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa soomaalidu saynu ognahay run bay mahmahdaa laakiin been ma mahmaahdo laakiin been way sheegtaa. markaa mahmaah dhaqanka ku qatontaanku weydiinaya mahmaahdaas waxay noqonaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa saddex lalama collaytamo. markaa saddexdaa aan lala collaytamin maxaan kugu dhahay bal saddexdaas isku day. saddex lalama collaytamo haddaan bal isku daya su-aashaa waxaa weeye saddex lalama collaytamo niyow ma xusuusta iminka taa. aad baad mahadsantahay walaalo. su-aasha labaad baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa nimankii tataarka la odhan jiray ee dunida weeraray dowladdii jebisay bal sheeg. waxaa jebisay masar. waa sax dalka lagu jebiyey masar buu ahaa laakiin dowladda ii sheeg. dowladda jebisay waxay ahayd dowlatul umawiya. sax dowlatulmamaalik. sax aad baad mahadsantahay. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. waay magacaago saddexan walaal iigu bilow. waxaa la dhahaa salmaan maxamed faarax. salmaanow ku soo dhowow shabakadda caalamiga hoohad news iyo barnaamijka su'aalaha. aad iyo aad baan ugu dhowaa. waayahay waxaan rabaa inaan saddex su-aalood ku weydiiyo. waxaad sheegtaa su-aasha koowaad waxay noqonaysaa mahmaada soomaalidu ay tidhaahdo saddex lalama collaytamo. saddexdaa aan lala collaytamin sheeg. saddexdaa lala coltamin su-aashaa garanmaya iyada. waaya labada kale soo daa. waaya su-aashaa waad garan waay waxaad sheegtaa su-aasha kale waxay ku odhanaysaa dowladdii waxaad sheegtaa nimankii tataarka la odhan jiray ee dunida weeraray dowladdii jebisay sheeg. dowladdii jebisay masar. dowladdii waxaa mawiya ma kare dowlatul mawiya. su-aasha maad garan. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxma. walaal magacaagoo saddexan igu bilow. magacaygu waa cabdibaasi faarax maxamuud cabdibaasi charles. waayahay walaal ku soo dhowow shabakadda caalamiga hoohad news iyo barnaamijka su'aalaha. waan dhowahay aad baad mahadsan tahay. waayahay walaal waxaan ku weydiinayaa laba su-aaloodoo kooban. su-aasha koowaad walaal waxay noqonaysaa saynu ognahay soomaalidu maaragtay waa dad dee maaragtay waa madaxa mahmaahda ma ogtahay. marka been way sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo. markaa waxaad sheegtaa mahmaaha soomaalidu ay tidhaahdo saddex lalama collaytamo. markaa saddexdaa qof ee aan lala collaytamin bal maxaan kugu dhahdaayey bal mahmaadaa soomaalida adigoo ku binaynaya bal ka jawaab. horta mahmaahdaas haddii aan fasirkeeda isku dayo saddex lalama collaytamo waxaa weeyaan waa nin ciddaada yaqaana nin cagtaada yaqaana iyo nin codkaaga yaqaana. maasha allah su-aashaas si wanaagsan baad uga jawaabtay walaalo. allah ku xifdiyo. asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmat. walaal ku soo dhowow shabakadda caalamiga hoohad news iyo barnaamijka su'aalaha. aad baan ugu dhoway barnaamijka su'aalaha waana mahadsantihiin. waayahay walaal adaa mudane magacaagoo saddexan. magacaygu walaal waa sakariya cali.
magac waa sakariya cali cartamay waay iskariyow su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aaloodoo kooban su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa waxaad sheegtaa soomaalidu maahmaahda ay tidhaahdo saddex lalama collaytamo saddexda aan lala collaytamin noo sheeg saddexdaas waxa weeyaan waa nin codkaaga yaqaana iyo nin ciddaada yaqaana iyo nin cagtaada yaqaana waayahay aad baad mahadsantahay su-aashaa waad ka jawaabtay asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi walaal magacaagoo saddexan igu bilow walaal magacaygu waa farxaan carabi axmed farxaanow ku soo dhowow shabakadda caalamiga hohaad news walaal waan dhowahay maanta walaal waayahay walaal waxaad ii sheegtaa maxaan kugu dhahdaayey su-aasha ah waxaad sheegtaa dawladdii ugu horraysay waa dawladdii ugu horraysay ee hawada dayax-gacmeed u dirta dawladdee bay ahayd walaal waxaan filaya inay jarmalka ahayd walaal may su-aashaa kamaad jawaabin aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum calaykum salam waraxmatullahi barkatu walaal magacaagoo saddexan igu bilow magacaygu walaal faysal maxamed cabdi weye waay faysalow walaal ku soo dhowow shabakadda caalamiga ee hohaad news iyo barnaamijka su-aalaha walaal aad baan ugu dhoway maasha allah walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ah soomaalidu maahmaahda ay tidhaahdo saddex lalama collaytamo saddexdaa aan lala collaytamin bal walaal su-aashaa bal isku day su-aashaa saddex lalama collaytamo wallaahi su-aashaas waxa weeye waxay noqonaysaa horta mid waa ragga midna waa dumarka oo candhajo ay ku jarayaan dayagu yaa kalala dawo nin day kula leh walaal aad baad mahadsan tahay su-aashaa kamaad jawaabin taa kamaad jawaabin tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkan barnaamijkeennii su-aalaha oo aynu ku soo qaadannay su-aalo ka mida dhinaca dhaqanka dhinaca su-aalaha sooshiyaalkaa ee aqoon kororsigaa waa farsamadii iyo kamaraddii iyo edhitinkii maxamed soomaali waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed turki intayn barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo